wiilku naf adag wax iska celi muxume isweydaarsiga daran kada aqashay wiilkii horta kala tagaba gabadhii horta kala tagay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay wiilkii gabdhaha uu keenaya waxa gabadha uu keenaya wiilka anaga la joogna anaga halkaas la joogna wiil gabdhaha keenaya waa qaali gabdhaha keenaysa oo raala waxaan xagee kaaga imaanaya gaar karana xoogaa adii at least caan waata ha macna meesha joogta caan waata ka tahay halka macna qaxootiga joogtay hadda caan waata ka garan laakiin aan waxaan la yaabay gabdhaha macna gabdhahan walwaalaya saas walwaalaya day saas isku xoqaya saas u dhookanaya gal Allah shayda ku yahay macna TikTok come on macna sa chess come on baby chess macna gabdhahan garan way macna meesha ka imanayaan ayadiina waa tasigana waa marka dhibaatada jirta waxay taqaanaa adii gabadhii hore deetii qabay macna Nairobi aaday naa walba ayaduna wiilashii baa wada oo saas ugu xoqaysa oo wada oo kama oo saa maxay ahayd xabadka ugu wada saas ugu xoqaysa saas ugu waxaynaysa asagina waa kana gabdho saas ugu xoqay waa noqda waa opposite sex asagina waa xagga gabdhaha iyadina waa xagga ragga marka waxa weeye xaaladdu waa waxa iska cilmi xuma isweydaarsiga xun qof bilaadanka sidoo markii inuu wax iska celiyo muxuma laakiin qofkii adiga macnaha aad wax isku waxaysa macnaha waxa idin ka soo dhaxan jireen ama hadda ka hor aad nolosha soo wadaagteen waa dhibaato haddaad markaad kala tagteen aad wax isweydaarsataan taas waa dhibaato ama tahay dhibaato weyn baa arkaan garanaysaa marka aad iyo aad baan uga xumahay ilaa qof walba ilaahay wuxuu ka baryaa gabadh macnaha ama qof baadan oo nolosha ay wadaageen inay markii kala tagaan ay macnaha inay wax isweydaarsanadii taas waa sharadhac ama waa aad iyo aad bay u falxanta ma garanaysaa marka ninkan waa adigu waa nin iska dhalinyara waa nin adigu ma garanaysaa dhalinyarana sidiisa waxaa liiday intuu yariyo macnaha qofka dhalinyarada intuu yariyo tala ka boodaa macnaha qof yar intuu yaryahay ayuu tala ka boodaa ma garanaysaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guud ahaantiin waan salaamo dhammaan meel kasta oo dunida ka joogtaan waan goob ka helaa kusoo dhawaada YouTube channelkayga dadka cusubtiin subscribe saar oo like gareeya comment ka soo bixiya siina share gareeya intii wax xilana walaalaha qalbiga wanaagsan aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kasta oo dunida ka joogtaan waxaa ilaahay soo dhawaada intii daawan jirtay aad baa ugu mahadsantiin intii hadda daawan doonta hadda igu soo biiri doonta waxaan ilaahay malaa'ig waxaan salaamto aad iyo aad baan idin jecelahay soo dhawaada okay arrimahan oo kale horta weli intaan noolaa kuma ana soo biirin waa arrimo igu cusub inaan ka garnoqo ama aan ka hadlo waa arrimo ma garanaysaa sidaba ani igu cusub marka haddii aan siyaabo khaldan ooga hadlo waxaan ka cudur daaranayaa inaad adiga daawanaya aadan macnaha khalad u arkin sidaba waxaa jira wax la dhaho calaf wax la jira ma garanaysaa marka calafka haddii uu ilaahay ku qoray inaad macnaha qofkan aad nolol wadaagtaan oo in badan isla noolaataan wuxuu ilaahay ku talgalay ma gafaysid haddii ilaahay ku qoray weligiin inaad macnaha nolosha aad weligiin inaa kala tegin hadduu ilaahay idin qoray cid idin kala geynaysa ama cid idin kala wadi karta ma garanaysaa marka anigu waxaan la yaabay wiilkan iyo gabadhan way isqabi jireen macnaha qoys bay ahaayeen macnaha dad wada degan oo heera bay ahaayeen family kadibna gabadhan macnaha xaaskiisii hore ayaa ma garanaysaa YouTube kusoo biirtay muxuma qof walba macnaha damac buu leeyahay macnaha qof walba wax buu jecel yahay marka gabadhan tooqeedii wuxuu noqday macnaha ama ay jeclaatay iyadu inay kusoo biirto macnaha YouTube inay kusoo biirto ama baraha bulshada sida TikTok YouTube inay waxaan kusoo biirtay macnaha garanaysaa gabadhii YouTube ka kusoo biirtay ma waxmee gabadhii gabdha ilaahay ku taagay haweenba ilaahay ku taagay war muxuusan waa ma bilaayadan waa ma haween unba ilaahay ku taagay ma xagga hadday noqoto comment hadday noqoto haddii ay noqoto magaaladii bay ka mari weyday baa hore magaaladii bay macnaha ka joog weyday way ka shaahin weyday musqusha ka gali weyday haweenka Soomaaliyeed bay musqul ka gali weyday oo ka soo kaadin weyday gabadhii rag ma aha macnaha gabadhii wiilka asagoo iska caadi magaaladiisu joogaa suuqiisu ka ganacsadaa suuqiisu joogaa waa nin timo jaraa waa ninka lejanka TikTok sa u kala qaanay hablahaas u walwaalaya laakiin dhibaatada waxay tahay gabadhii ayaa wadada mari la oo musqusha intee gasho ka soo kaadin la hablii Soomaaliyeed marka aan waxaan la yaabanahay dhibaatada hadda waqtigan jirta haweenkan
macnaha aminkan la jooga hadda waqtigan caalamkan adduunyada hadda la jooga raggii baan ka baxsanayna dumarkii baan ka baxsanayna arigii baa wadada ka marla marka oo hadda taan la yaabo waxay tahay wiilkii horta kala tagaba gabadhii horta kala tagay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay wiilkii gabdhaha uu keenaya waxaan gabadha uu keenaya wiilka anaga la joogna anaga halkaas la joogna wiil gabdhaha ka keenaya waa qaali gabdhaha ka keenaysa oo raali waxaan xagee kaaga imaanaya kaada karana xoogaa adii at least caan waata ha macnaha meesha joogta caan waad ka tahay halka macnaha qaxootiga aad joogtid hadda caan waad ka tahay garana laakiin anu waxaan la yaabay gabdhahan macnaha gabdhahan walwaalahaya saas u walwaalahaya day saas isku xoqaya saas u dhuukanaya gal Allah shaydaa ku yahay macnaha TikTok come on macnaha saa chess come on baby chess macnaha gabdhahan aan garan waay macnaha meesha ka imanayaan ayadiina waa tasigana waa marka dhibaatada jirta waxay tahay taqaanaa adii gabadhii hore tii qabay macnaha Nairobi aaday maa walba ayaduna wiilashiiba saa wada oo saa isku xoqaysaa oo saa wada oo come on oo saa maxay ahayd xabadka ugu wada saa isku xoqaysaa oo saa isku waxaynaysaa isagina waa kana gabdhuhu saa isku xoqaya waa moogta waa opposite sex isagina waa xagga gabdhaha iyadina waa xagga ragga marka waxa weeye xaaladdu waa waxa iska cilmo xuma isweydaarsiga xun qof bini'aadanka sidoo horta inuu wax iska cilmo xuma laakiin qofkii adiga macnaha aad wax isku waxaysa macnaha waxa idin ka soo dhaxan jireen ama hadda ka hor aad nolosha soo wadaagteen waa dhibaato haddaad markaad kala tagteen aad wax isweydaarsataan taas waa dhibaato ama tahay dhibaato weyn baa ka garanaysaa marka aad iyo aad baan uga xumahay marka aad iyo aad baan uga xumahay ilaa qof walba ilaahay wuxuu ka baryaa gabadh macnaha ama qof bini'aadan oo nolosha ay wadaageen inay markii kala tagaan ay macnaha inay wax isweydaarsanidii taas waa sharadhac ama waa aad iyo aad bay u falxunta ma garanaysaa marka ninkan waa adigu waa nin iska dhalinyara waa nin adigu ma garanaysaa dhalinyaraan sidiisa waxaa layidhi intuu yariyo macnaha qofka dhalinyarada intuu yariyo tala ka boodaa macnaha qof yar intuu yaryahay ayuu tala ka boodaa ma garanaysaa marka anigu hadda amin maqrib baan joogaa hadda macnaha meesha joogaan yana xoogaa waa mugdi marka khayr baan idin rajeynayaa tan intaanu kulmi doono kulan la mid ah waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo ilaa YouTube channelka inaad subscribe saarto oo like garayso comment ka soo bixiso siina share garayso asxaabtana inaad la wadaagto aad iyo aad baan